السلام عليكم أصحابتي دنوان السلامي سومالي ميرور بيجوكتو توا دكتور زاكي سومالي تي في شو waxaan leeyahay subscribe da like na saar share gareesa qof walba gaarto dadka Mareykanka ku nool lacagihii ayaan ka hadlaynaa oo dawladda bixinaysay horta mid koowaad lacagihii la bixinayay dawladdu waxay sameysay loan gaar ah haddii dalbati oo lagu soo diraayo haddii u baahan tahay lacag degdeg ah oo emergency ah lacagihii kale oo caadiga loo bixinayna 1200 horta waa la bixiyay dad qaarkood wali ma qaan dad yar ah laakiin badankood way qaateen hadda waxaas lacagtii roundigii labaad oo 2000 ayaa la sugayaa wayna soo socotaa laakiin balse sida akhbaar aan ku maqlay iyo akhbaartii soo gaartay hadda dhow waxa la leeyahay lacagta inii loo bixin doono jumla ahaan 6 bilood oo hal mar la isku kansiin doono calaa qofkina uu qaadan doono 12,000 ma garatay sida la sheegayo so haddii familkii waxaa laga yaabaa 5 qof haddaa tihiin 12,000 June ayaana bilaabanaysaa hadduu ilaahay raali kala noqdo ilaa 5teeda ilaa 6teeda unemployment-ga soo haray lacagtii unemployment-ga dad badan waxaa waaye oo building ku jireen oo wali loo soo dirin way dahsadeen markay dahsadeen shaqadii ku laabteen wax loo soo diray mala kuwaas lacagtaas unemployment-ga waa sida shaqada deblaawen is done ma garatay balse dadka wali bilaawin oo sugayaan dad inta soo milyan oo dad unemployment-ga balaagarastay teleefankooda markaa waa soo busy waaye inta soo dad aqad ku jiro laakiin si patient ina qaadatay waa lagu soo dirayaa hadda shaqeynaysay 2019 iyo 2018 adi waa lagu soo diray in way company-gaaga laga soo qaadaya wax walba information laga rawana waa ina complete ka dhigtaa sida lacagtaas ku heshay guys wixii kale akhbaarna subscribe daha sida akhbaarta macnaha aan la soo socodsiiyo akhbaar walba aan soo galiyo si ay soo gaarto insha Allah see you guys